الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغريبا الليال إلهي بأن الله نوافجي اسمك كيري مساجد كان قيمها له مسجد على المقام يكون الله مرتبها مقالة هرقيسة. موضوع مرابحته وموضوع مهم سن إيمان تبنجية الإسلام كاهي أي كشقيان أي دذكم الجريان أي يونا أي وحكوهرا وحرودي أي فرصدي نصيب أي نوهري إنه عاوي يلا ولا هبين إصاص عضبا موضوع أي نوبل بالله شروط أوليها إنو شيغو سور كيسا إنو شيغو أخداد كترتا إنو شيغو توصيات يا دردان وحو إنو الشيخ يا شيخ إنو شيغو شيخ نوين العالم العلامة المحدث شيخ عبد الله علي حفظه الله ورعاه وحكرا ردي أن نسعد سيريا وحي السؤال وسوق الدين دونتان habeen ka u dambeysay insha Allah taala min sheekha uu gudbin doona oo iyadana uu inooga jawaabi doona marka sheekha ayaa ku soo dhaweynaya fariya tafadal mashkuran majura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يستوى شيخ شيخي حفظه الله موضوع ده قرنا وموضوعا ما أنت لاركم مؤسسات الإسلامية مبنوك الإسلامية بقول كي بس عشان هما إنكسر رئيس بلاد قاركود إن الشقة دي معاملات كود أي نقدة دي أو جهد استثمار كود كل يوم موضوع مهمة أو كي إسقو بنكي كشقين يي مؤسسة سهوشة فرين يي iyo kii isagu bankiga la tacaamulayay hawshan isagu wax ku fushanaya ama maalgelin ku doonayay iyo dadkii dalabada cilmiga haaba ama dadka kale ay yar baahan yihiin bal in waxyaalo la isaga tuso bal taas bana kulli saddex habeen wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala inooga qadaro aan kaba sheegi doonaa iyadoo habeenka ugu dambeeya kulli hadii Allah ilaahu noqon doono bal ma nidaam ahaan تنفيذ أهان يا تطبيق أهان يسن لو فليو معاملة ضايو دعضو قلد بدن يا أخضاب شرته وحق تطبيق يفلنته أخضاب أسنوي كلواوين تاي كل آد بيوسي وينان يسايا وحي سقي الربادي فرق بمركا قلد كاوما دحين أيوه والأخضاب سي عدي على قلل هيد لبعض لنعبة كبحين إياك قادنا إياه كان إسقو مؤسسة كشقينية كي لا تعاملية أخضاد عين كاسية كي كلابا إياه بلو أغادو تاسي كل يواتن هبين كوغدن بيا أن يرئي دونو بل تاسبه هرت أرنتو أي نقون دونتا ما هقودهان معاملات كي كما هلينيه ونوع معاملات كميدو دي ما انت شائع وملاس دميه سنو دنبابا آد أبطي كاسبه كلام كيدو نقون دونا ولنتينا الموضوع قلين كل يروح مسلم كأه waxa isaga waajib ku ah inuu masaa'isha xalaasha iyo xaraamta barto oo sida cibaadaadkii ba inuu barta ay waajib ugu tahay ayaa ruuxi isagu amal acmaasha kamida uun ku dhex jiray wixii ka xalaaliye wixii ka xaraamay inuu ogaado ay waajib ugu tahay inuu waxan uu bal kolba mucaamalaadkan uu ku dhex jiray iyo taas uu mumaarasaynayo aqoon inuu yeeshana waajib bay kuba noqonaysaa إن سو بلوحي كتعلق سنا وأجاده
riba halkay kaba imanaysa iyo wixii camalkiisana ma fasahadinaya waxyaalahaas uu garto si ugaba dheeraado xadiidkan duruqda badan lee dalabulcilmi fariidatun calaa kulli muslim kole aimada qaarkoodna ay taxsiiniyeen barhkoodna ay tasxiixiyeenba waxyaalihii ay culimmadu kuba fasireen ka ruux kastaba muslim ah waajib ku ah ama farad ku ah waxay yidhaaheenba cilmigan maqsuudkiihi waa waxa weeye maa tatawaqafu calayhi sixatu alcibaadati waalmucaamala waa garasho iyo aqoon uu yeesho cibaadadan uu la imanayo sixadeeda iyo dee waxay ku xidhan tahay iyo mucaamalaadkan kale iyo dee markaas iyadana sixadoodu wixii ay kuba taagnayd tahay inuu ogaado waayo waa shay fardu cayn shakhsigii kuba ah wixii intaa dhaafsanaa waxaa laga kaa fardu kifaaye iyo wax kaba dee masalan kaba duwan inuu noqdo taasba wey marka ruux kasta oo camal acmaash mucaamalo kuba jira waajib bay kuba tahay inuu isagu barto axkaamtii kuba tacalluqsanayd si aanu xaraamtii ugu dhicin isagoon dareemahayn kollayna jahli maanta waayo waxyaalo badan oo ruuxu jahli u samaynayaa jirta laakiin jahli loogu cudurdaarayo la leeyahay ruuxani waa jaahiloo waxba looma qabanayo maaha waayo waxaa jira meeshii taqsiir waa wuxuu baran karo maanta sidii beryihii hore maba aha isagoo gurigiisa joogu wax dhagaysan karaa waxa weeyaan ciddii uu weydiinayay baa uba dhow kitaabkii uu baranayay baa u sahlan oo bal maalan wasaa'il badan baa maanta oo wax lagu barta ay noo soo korodhay taasna waa tafriid xaggiisa kaba yimi jahligaasi oo jahli loogu cudurdaarayo maaho dembigii meeshii u imanaya un ruuxu uu gudagalo tijaaro iyo baac mushtari iyo mucaamalaadkan isagoon axkaamtii sharciga ahayd ee dabdinaysay taas aan garanahayna kollay khatar weyn baa kuba sugan rasuulka wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiid tirmidi iyo ibnu xibbaan iyo xaakimi ay wariyeen sanadkiisnoo saxiix yahay yaa macshara atujaar ina atujaara yubcahuuna yowma alqiyaamati fujaaran ilaa man ittaqaa wabara wasadaq ilaa man ittaqa allaha wabara wasadaq lafdiga tirmidi bal dadka iyagu tujaarta ahow waa dadka dee baac mushtari kuba jirow dadkii tujaarta ahaa waxaa la soo bixinayaa maalinta qiyaamaha iyagoo fujaar ah oo faajiriina la soo saaraya ilaa man ittaqa allah ruuxii ilaahay kaba cabsada tijaaradiisa iyo camalkaa uu ku jira mooye wabara wasadaq macnaa ixsaan iyo wanaag laba yimaado camalkiisaasoo run sheego khiyaamo iyo waxyaalaha iyo qishi aan laba iman lafdigana ilaa man ittaqaa ama ilaa man ittaqa allah sida riwaayaadka a'immada barhkood dhacday macnuu waxa weeye ruuxa isagu ilaahay kaga cabsado waxa uu ku dhex jiro ee markaa ka dhowrsada waxyaalihii muxaramaadka ahaa ee camalkiisa ku tacalluqsanaa ka caynkaasi dee faajir ma noqonayo waxa weeyaan isagu waa ruuxa toosan ee isagu abaal kale iyo sawaab kaloo weyn yeelanaya laakiin ruuxii isagu wixiisa isdhowri waaye muxaramaadkii iskaba dhowri waaye haddaanu aqoontii lahayna aqoonteedii lahayna iskama dhowri karo dee kollay bal arrinkaas baa uba yaal cumar ibn alkhadaab radia allahu tacaala canhu ardaahu amiiru lmu'miniin dadka tujaarta wuxuu amri jiray inay axkaamta beeca iyo iibsiga bartaan tirmidi baa wuxuu kaba wariyey sanadkiisa kaba wariyey oo ana xasanna waa asarka waa kaba dhigaaya inuu cumar yidhi radia allahu tacaala canhu laa yabic fii suuqina ilaa man qad tafaqaha fi ddiin kollay abwaabta jumcada bilowga ama intaa axaadiid oo asar kaba horeeya uno intaanu bilaabin kitaabuljumucu ku soo arooriya kitaabulmuca beeciyo halkaa kuma soo arooriyo tirmidi wuxuu odhan jiray suuqa iyaga yaanu wax ku iibinin ilaa man qad tafaqaha fi ddiin nin diinta bartay oo mooye tafaquhana waxa ugaba jeeda ama uu yahay atafaquhu fii masaa'ili alxalaali waalxaraam masaa'ishii xaraamta iyo xalaasha garashadeedii maaha haddee inu caalimin ah oo diintii wax kastaba kaba garanaya kaas uma ujeedin ama maaha maqsuudku waa camalkan uu ku dhex jiro tijaarada ah xalaal iyo xaraam bay leedahay ruuxii garanaya taa fahamsanaa kaasu mooyaane yaanu nin kale suuqa iyaga wax ku iibin waa cumar ibn alkhadaab amiiru lmu'miniin radia allahu tacaala canhu hadalkiisii axmed shaakir baa taxqiiqiisa uu tirmidi kuba leeyahay waa manuu dhammayna waa labada mujalladee hore uun inta kale dad kalaa leh ayaa isagoo asarkaa marka tacliiqinaya wuxuu yidhaahaa waa hadalkiisii
ونعم حتى يعرف ما يأخذ وما يدع محو عمر سن ليه وسوء قرت الروح وحاو قادنيو بعنا أبنان إنو قاته إيا وحاو كتغيو وحتى يعرف الحلال والحرام وسوء قرته ده وحوين حلاشي يا حرامتي وددك أنا وقفت هادين iibkoodan iyo iibsigoodan abaadiir iyo akaadib aanu uga fasahaadin dadkii aanu u gelin dee la tacaamulaya wax kaba iibsanaya ribadii meel aanu ruuxan iibsanaya aanu dareensanayn markaas hadalkiisa wuxuu ku soo dhameeyaa waxa ay taasi tahay oo bil jumla takuna tijaratan islaamiyatan sahiha say tijaradu ay u noqoto tijaro islaamiya oo sahiha oo ruuxii muslimka iyo kii aan muslimka ahayn baa ay ku kalsoonaadaan oo qishi iyo khidacaan kuba sugnayn taas baa Umar uu amrayay radiyallahu anhu dadka amalka ku dhex jira inay bal waxyaalahaas ay aqoon u yeeshaan ibn Nujayb rahimahullahu ta'ala wuxuu soo naqliyaa tijaartu waqtiga hore waa say ahaan jirtay ida safaru isashabu macahum faqihan yarji'una ilayh markay magaaladoodii joogaan dee culimadii baa joogta wixii ay u baahdaan ee kuba yimaada waa ay u laamayeen iyadoo cilmigan bay'uno kulay aanu cibaadaadkiya taalaba mid ahayn cilmika daqaa'iq badan oo ka qarsoon uu yahay oo wax markaas sadaradeedna ibn abd al-barri saaxibu tamid wa tamidkiisa uu kuba yiri soo xadiis qabanayay cilmu al-buyu' min ilmi al-khaassa walaysa min ilmi al-aama oo cilmiga bay'u waa dadka khaasada ah aqoontoodii cilmigoodii bacna dadkaas ba hagaag u fahmaya dabdinaya meelaha de masaaliktiisa iyo duruqdiisa iyo umuuraha garanayo kala saaraya dadka caamada kolkol waxa weeye waxyaalo badan oo kaba qarsoonaanaya ama xataa dadka ahlu cilmiga kuba imanaya ayaaba jira bal markaa de magaalada ay joogaan ninku magaaladii joogo ninkii caalimka ahaa iyo mashaayikhdii tiba uba dhow wixii uba saxayay laakiin wuxuu soo naqliyaa markaa waqtiga hore ay safraan inay ka xaysan jireen waa dadkii de Ilaahay ka cabsanayay tijaaradooda dhowrayay nin faqiiha waa nin caalimo oo wixii ku yimaada ay u laamaan inta safarkooda oo kale waxaan soo naqliyaa aymatu khawarizm magaalada ama mandiqada khawarizm la oranayo aymadeedii buu kaba soo naqliyaa annahu la budda li tajiri min faqih sadiq ninka taajirkii kama maarmayo hadduu doonayo wixiisii inuu dhowrto oo iska ilaaliyo xaraamtii xalaashii laba yimaado nin faqiih oo saaxiibkii oo hadiyo goor uu la xidhiidhi karo u dhow oo wax weydiiyo kama maarmayo taas ba way in bal markaa in waanatan de xataa muassasaadkan islaamiga ama buduugta ay laazim kuba tahay inay ha riqaabo ama raqaabo sharciya muraaqib sharciya ma aha ruux marmarun u yimaada ruux kolkolun ay wax weydiiyaan ruux mucaamalaadkii la socdo mucaamalo kastoo la fulinayo eega oo bal hubsada ay u baahan yihiin ama laazim ay kuba tahay haddii ay doonayaan wixii inay saxaan oo akhdaa dhicin waayo ka dabatageedu way adagtay sixideedii ama si loo laakiin waxa weeyaan waa ka hortag iyo mucaamalaadkii waa nasa ay daraga horeba lahaayeen iyadoo tijaaradu aanay tan ahayn mucaqadka ee mid kooban bay ahayd in rahuni awdu ayaa wuxuu soo naqliyay naimada maalikiyada kamida kitaabkiisa awduhul masalik ayuu sheekhiisa qaarkood kaba soo naqliyaa inuu yiri inuu soo gaadhay waa bilaada waqooyiga Afrika kuba taala al-Maghrib ruuxi muhtasibka ahaa waa ninkay wadiifadiisu xisbada ahayd khaasatan suuqyaduna iyo waxyaalahaas kaba dhacaya saxideedii iyo amarka macruufka iyo taasiyana wadiifo qaadinimada ka hooseyso oo jirtay weeyaan oo marka ay cidi kaba shaqeynaysay hadaba ninkii muhtasibka ah wuxuu soo gaadhay isagoo suuqyada soconaya waqtiyadooda suuqu ku wareegaya markaasuu dukaanka soo hor joogsanaya ninkii saaxiibkiisa ay dukaanka ku jiray buu weydiinaya عن الأحكام التي تلزمه في بيعه والأحكام تيساق لازمة بيعي سنية إبسي سنية هل كي ربا وسوق ليسو إياه سوي ساق إلالنا يوم فإن أجابه أبقاه في دكانه هذا أمورها قرطو دكان كي وكدين يوايا واده بل هذا أنه إساقو حقي سدين إساقو وحي وقرانيه كقود بيو مركز إسكال دورين حرام أنه هينو دي عبسي أنه كترين أنه هين كل دوحي قرانيه وإسكال إلالنا يوم وإن جهل شيئا من ذلك أقامه من الدكان هذا وحيالها قرن وايو لويدينيو وكحري جري دكان كيبو كوحري جري وككعنيي ومركز أورانيي لا يمكنك أن تقعد في سوق المسلمين وتدعم الناس الربا وما لا يجوز suurtagalku ma aha de waqtiga sawda jirtay waatan umuri diintana waa la ilaalinayay kuma suurtagelayso
inaad fadhido suuqii muslimiinta adigoo dadkii muslimiinta ribo cunsiinaya ama waxaan bannaanayn bal markaa waxaan leenahay waa ka hordhac ahaane waa mucaamalo dadka iyagu mucaamalaad kuba jira tijaaro kuba jira laazim iyo waajib ay kuba tahay bal camalka ay ku dhex jiraan axkaamtiisii dhoweyd ee ku tacalluqsanayd inay ogaadaan oo bartaan maantana duruqdu aad bay u sahlanto say bari ahaan jirtay ma aha ruuxu dhibiraan buu taa kuba ogaan karaa isagoo gurigiisa jooga ayuu wax dhagaysan karaa ogaan karaa duruustan oo kale uu xaadiri karaa darsi dee bal maalan masaajida duruusa kaba socdee abwaabtii mucaamalaadkuu dhagaysan karaa adigu maanta umuuru weysaalayiinoo isagoo shaqadiisii wato hawshiisan kalena ama tan kalena fushan karaaye bal waxa ay tahay laazim bay ku tahay ama waajib bay kuba tahay inuu ruux kastaa barto taasoo maaha bal taasi waa si guud iyo nooc de bal tamhiid ahaan iyo tawsiye ahaan ama mawduuceenu kolleysa haddii ay tahay waa bayculmuraabaxa marka noocyada beeciyada ama hababkan iyo oo asaaliibta wax lagu kala iibsado laguna iibiyo ee fuqahadeennii horena ay kaba hadleen muslimiintuna fi saabiq ay ugu tacaamuleen bal imakana aan idhaahno kolkol dee waxyaalo furuuq badan baa u dhaxaysa waan sheegi doonaa maaha inay tii hore oo lasoo qaado sideedii loo soo qaaday ay tahay furuuq badan baa u dhaxaysa magac ahaan iyo suwar ay iskaba shaabahayaan waa jirtaaye ay maantana almasaarif alislaamiya ku tacaamulayaan waa almuraabaxa ama bayculmuraabaxa markaa insha allahu tacaala iyadoon ilaahay weydiisanayna inuu sida bal ina waafajiyo sida toosan ee sawaabka waxaan ka yar hadli doonaa horta marka hore suuradeedii hore fuqahadii ay kaba hadleen say ahayd ama ay tahay baan kaba hadli doonaa suuradeedan dambe ee cusubna waan kaba hadli doonaayo sababtu suuradan dambe waxaan suuradaa uga horraysiinaynaa taa hore asaas ah tani taas bay kuba binaysan tahay aadba ha uga fogaato oo waxyaalo badan ha kaga fogaatee taa hore weeye haddii la doonaya axkaamteedii bal in la dabdiyona dee tii hore wixii bal maalan xukumay lahayd baa lagu dabdinayaa oo bal suuradeedan cusub iyo wixii bal axkaam iyo dawaabida kuba tacalluqaya taas wey bal markaa si aan tii hore u suuraysano iyadoo a'imadeenni ay dee kutubta madaahibtaba ay ku wada sugan tahay kutubta masjidka lagu diraaseeyeyna dee dadkii dalabada ah ee xaadirayay taas ay arkeen oo ay dee leedahay markaa mawaadicdeedii tii hore aan ku hornayna tadambana waan sheegaynaa markaasaa bal waxaan muujinaynaa waa caawa ahaan labada farqiga uba dhaxeeya ama furuuqda uba dhaxaysa si aan loo qaadan xukunka aan imaka hore u sheegaynee sharciga ahaa ee ittifaaq ahaan inay jaa-isay culimmadu ay soo naqliyeen mar kala duwan ay soo naqliyeen inaan taasun la qaadanoo lagu tadbiiqin suwartan imaka markaa ay dee muraabaxada jirto oo aan la odhan waa la isku waafaqo tanna waa la isku waafaqsan yahay labada waa kala duwanayaan tani suuro kastaaba xukunkeeda yeelan taasna xukunkaa guudeen sheegi doonaabay lahayde bal waxa weeye taasaan de eegaynaa bal markaa laftigan almuraabaxa horta xagga luqada waa laftii laga soo qaatay arribx oo ah waxaan la rogrogayo waxa macaashe kaba soo baxa ribxi la yidhaah waa waxyaalahan la rogrogayo taas lacag meel taalla inuu ruux la siiyo waxuu ku biirinayo waxa ka soo baxa ribxi laguma magacaabo waayo in kamay dhalan rogrogid la rogrogo lacagta ay caruud noqotay ama alaab ay noqoto haddana ay lacagowdo taas kamay dhalan rogrogan wax la rogrogayo la iibinayo la iibsanayo taa waxa kaba soo baxa ee markaa faa'iida ama macaasho taas baa luqada carabeed arribxi la yidhaah annamaa fi tajrib bal markaa laftigan almuraabaxana xagga marka la eego luqada carabeed wuxuu keenayaa almufaacala wax laba dhinac kaba imanaya laakiin almuraabaxa hunkan mufaacaladu halkan baabkeedii kuma sugno waayo ribxiga meeshan kaba soo baxaya macaashka kaba imanaya maaha inay labadan dhinacee ku tacaamulayaan labaduba ay wada helayaan ee dhinac baa helayo waa kii baa'ica ahaa ayaa helaya kan kale waxbuu bixinaya oo baabkeedii horta mufaacaladu kuma sugno waxay la mid tahay un alfaadaha iyadoo wasankan lagaba cabiray loo isticmaalay mid keliya sida saafara iyo caafahullahu iyo ayay raabaxa laba mid tahay bal taasi waa xagga luqa ahaan ama xagga istilaaxan fiqiga ah say akthar alfuqahaa ku tacriifiyaan muraabaxadu waxa weeye albaycu bimithli asamani alawali maca ziyaadati ribxin macluum iibid wax lagu iibiyo
lacagtii marka hore iyo waxaan la siistay ee raasamaalka ahayd wax la mid ah ama iyadoo lagu darayo ribxi markaa la isla ogyahay macnaa intii marka hore la sheein uu ruuxani soo siistay wax iibinaya waa inta laga dhaqaaqayo labadooduba way isla ogaanayaan dabadeed baa wax la saaraya ribxi macluuma laba saaraya bal mesela waaba isagoo yidhaa waxani wuxuu igu joogay $100 buu iguba joogay waa intii uu kuba joogay hadduu maca kharaj ku darayo ama aan siistay hadduu intii uu soo siistay u sheegayo waxaanan dee aniga macaashkaygu uu yahay $10 مثلا taasoo kale eeg samantii hore ayaa laga dhaqaaqay waxna waa lagu daray ziyaado macluuma bal taas baa muraabaxo laba yidhaam markaasna iyadu muraabaxadani waxay kaba mid tahay culimada qaarkood si ay u kala buyuucda ay u kala farqiyaan buyuuc ay ku magacaabeen buyuucul amaana oo macnuhu waxa weeye iibka wax la iibinayo xagga markan eegna sharcan wuxuu ku guntamaa markan eegayno samantan ama lacagtan lagu kala iibsanayo sida loo xadidayo laba usluub laba hab mid waxay ku magacaabaan culimadu beeca musaawama yidhaahaan midna beeca amaana yidhaahaan marka beecu musaawama waxa weeye waa beecan aan u badannahay albaycu bisamani alladii yattafiqu calayhi almutacaaqidaani duuna nadari ila samani alawal waa iib wax lagu iibiyo wixii labadan iibku uu dhex marayaa cabdigani ay dhex marayaa ay ku heshiiyaan iyadoo la eegin kan iibinaya wuxuu soo siistay aan la eegin wuxuu ku joogay aan la eegin oo taa aan la hadal qaadin waa la isbaayacayaa intii dee lagu heshiiyaa lagu kala iibsanayaa kaas iga ridiyo kordhi iyo waxyaalaha iskaba imanaysa kaa baycu musaawama yidhaahaan midna baycul amaana ayaa laba yidhaahaayo waa beec isagu ku dhisan على أمانة البائع روحا وحيبينيا أمانة كالصونية لو كالصونانية حق مركا لأيغو إساقو كورميا وحي وحني كبتشوغي أما سلعة وحي وكبسو إبسدي ووحا بيع الأمانة لو بيريب وحا وكبيني سيهي روحا آمنين الآمنة يو إساقي واشيغيا wuxuu sheegayaa intii waxani uu kuba joogay buu sheegayaa ama uu soo siisay hadduu aanu wax ku darahayn kharaj kale kuba darahayn tiibaa laga rumaysanayaa tiibaa lagu aaminayaa halkaasaa deeta wixii lagu darayay lagaga darayaa markaa beecul amaana taas bay uba yidhaaheen markaa laakiin isagaa qayba yeelanayo beeca caynkaasee marka hore dee ay laysla og yahay wixii la soo siisay ama uu ruuxan ku joogay laysla og yahay haddii markaa wixii mabiicdaa la iibinayay intii marka hore uu ku joogay in ka yar lagu iibiyo oo ninkii isagii baaba iskhasaarinayo halkuu 100 kaga joogay buu 90 ku iibinayaa waxbuu kaba tegay kaasoo kale waxay ku magacaabaan oo magaca laba yidhaahaa wadiica ama baycu wadiicatin waxbaa la dejiyey la dhigo intii raasmaalkii baa wax lagaba tegay laakiin waa laga dhaqaaqo dee beenama in khiyaama meeshii ma jirto hadday khiyaama soo gasho waxbaa la isku soo noqon karaa haddii uu ku iibiyo binafsi taklifa intuu ku joogay inbuu yidhi ii celi intaasii igu joogay 100 buu igu joogay 100kii un isii wixiina waa sheegay taasoo kale tawliya yidhaahaan beecu tawliya oo waxay kaba dhigantay ninkii baayic ahaabaaba kii kale mushtarigaa buu halkiisii dhigay oo wixii buu tawalisiiyey adigu tawliya yidhaahaan laakiin waa kan imakay inoo jireen u jeednee haddii wixii lagu iibiyo intii taklifadiisu ayd in ka ziyaadsan eeg taklifadiisii waa la sheegayaa wixii uu kuba joogay waxna waa lagu daray marka caynkaasa muraabaxa la yidhaah waxa saddexdooda ka dhaxeeyaana waa buyuucul amaana oo waxa meeshii jirta aaminid iyo kalsooni ruuxan waxan uu sheegayuu leeyahay intaasii ugu joogay lagu kalsoonaanayo oo mesela muraabaxadii oo kale waxbuu sheegay intii baa ribxigii laguba daray siibaa lagu kala iibsaday hadday khiyaama soo baxdo oo ay caddaato in intan uu kuba joogay dee in ka badan uu sheegay oo halkan uu 100 iyo 100 aanu kaba joogin ruuxii wixii dib ugu soo laamay waayo taasa laga dhaqaaqay meeshii khiyaama soo gashay been baa soo gashay ruuxii ama beeci waa fasakhi karaa ama wixii baa la dhimayaa ribxigii iyo sicirkiiba waa la dhimayaa ribxigii la saaray inay wuxuu yidhi 100kii ayuu kaba soo qaado inuu 10 dul dhigtay 10kiina way isdhimi wixiina way isdhimayaan hadday khiyaamada soo dhacdo oo dee isagaa la aaminaya lagu kalsoonaanayo tan baa beecu amaana wiil bal taasi waa xagga marka la eego beeca siyaalaha ay uba qaybiyaan marka
beeca muraabaxo maxaa xukunkiisa hada kii horaan ka hadlaynaa maaha umaanaan gaadhin imaka tan joogto kamaynaan hadlin beecul muraabaxa markaa beeca caynkaasee wax lagu kala iibsado oo ruuxu yidhaha wuxuu intaasi igu joogay hadduu kharajkii ku darayo dee kharaj kastana laguma darayo waa kharajkii waxaan ku xidhnaa ayaa lagu darayaaye aniguna waxaan intaas siiyo dee intaasoo dee nisbadaasaan kaaga iibinaya oo sidaa lagu kala iibsado waa beec isaguna horta waa bannaan yahay wuxuu ka mid yahay uun albuyuuc aljaa'iza haddii aan wax fasahaadinayo kale soo gelin oo xaggii shuruudiya waxyaalaha wax fasahaadinaya soo gelin oo bacnaa wax kaloo xumaynaya meesha aanay jirin suuro ahaan waa beec jaa'is oo buyuucdaa shareecadu ay sugtay uun kaba mid ah xagga mucaamalaadkana waxaaba ay tahay waxa u asala aljawaaz xataa yaquuma daliilun cala almanci waxani inuu bannaan yahay kol hadduu mucaamalo yahay ilaa la helayo wax daliiloo caddaynaya inaanu bannaanayn aimada xanafiyada waxay idhahaan bal waaba shay loo baahan yahay beeca caynkan ee muraabaxo oo sida loogu baahan karaa waxa weeye waxaa dhici karta ruuxan wax iibsanaya nin aqoon u leh qiimihii iyo sicirkii inaanu ahaynba aqoon u leh iibkiiyo waxyaalaha caynkaasa aanu lahayn markaasaa wuxuu u baahanayaa ruux kaloo khibro u leh oo uu ku kalsoon yahay oo uu og yahay waxaan inuu intaas siistay oo wixiina uguba darayaayo halkii isagu dee laba khiyaamayn lahaa ama waxaanu khibro u lahayn inta maalan uu galo laguba dhici lahaa ayay tani umuurahaas baabay ka badbaadinaysaayo waa jaanib looguma baahan karo xagga marka leega xukunkaa jawaaskan sheegay kollay aimo kala duwan baa itifaaq soo naqliyey suwartiisa qaarkood karaaha barhkood ha ku sheegeen barhkoodina inay tahay khilaafu lawla san mar dambe sheegi doono ta haddii la yidhaha haba sheegeene laakiin xukum ahaan iyo bannaani kaasaani oo kale saaxibu badaa'ic sanaa'ic ibnu qudaama oo kale saaxibu lmuqni bal ibnu jariir oo kaba horeeyey iyo itifaaq laysku waafaqsan yahay bay soo naqliyeen allahuma suurooyinkiisa qaarkood baa culimmada qaarkood karaaho ama ay ku sheegaanoo waxaa kaba mida dee isaga cibaaraad lagu kala iibsado leh hadday cibaaradu tahay imaka waxani 100 buu igu joogaa macaashkayguna waxa weeye ama rifigaygu 10 waa cibaaro cad labadii rifxigii iyo samantiiba la garanayo oo suurada iyada ee wax in markaa karaha cidna may oran laakiin arrintu hadday noqoto nisbo oo yiraahdo 100 baa waxan igu joogaa 10kiina mesela $10 $1 baan ka macaashaya waa nisbo ama 100kii imaka 10kiiba hal uu yiraaho ama 100kiiba 10 uu markaa taas oo kale yiraaho oo waqtiyadooda imaam axmed iyaba waxa laga soo naqliyay suurada inay karaahato waana suurada ay kutubta fiqiga barkood kaba cabiraan dahyaazda waa cibaaro farisiya macnaheedu taa yahay oo dee wadanka marka laga khuraasaan oo dhan waa afkii u badnaa laga hadlayay ciraaq hadii la gaadho af badan buu ahaa markaas oo dee xataa kutubteena fiqiga shaafiiciyada cibaaradu way kuba sugantahay dahyaazda cibaarada ay ka cabiraan taas baa ibnu Abbas iyo ibnu Umar iyana loo tiiriyay inay kareen iyo bacda markaa taabiciin imaam axmedna suuradaas oo kale waxay ku cileeyeen wax weyn ma aha waxa dee jahala ku sugan xaqii ribxiga waa hadii dhaqso imka sadee in markiiba loo ogaanayo 100kaasan soo siisay 10 waa macaashkaygii waa caday laakiin marka la yiraahdo $10 ba $1 ama $10 ba $1 ba faa'iidadaydu ay tahay waxay leeyihiin soo saarka marka la hadlayo jahala xaqii ribxigii jira laakiin waa wax saa ibn qudaamiya ayran xisaab markaaba kuba suuri kara oo karaahada ay ilaahayn mooye waa suurada dahyaazda ay kaba cabiraan ayaa bacd ulama waa muraabaxada hore ayay karaaha kuba tiriyeen bal in taasi waa xukunka guud laakiin aimada maalikiyada waxay kuba tagaan in bay'ul musawama uu ka mudan yahay ka fiican yahay oo ama ka roo yahay bay'ul muraabaxa oo waxay iyagu leeyahay shaafiiciyada iyo xanafiyada iyo wax karaahana ma geliyaan taasna ma yiraahaan maalikiyada ayaa waxay yiraahaanba beecan la isbaayacayeen waxba ninku wixii hore soo siisay aan la odoonayeen laga daba tagahayn waxa aan laga dhaqaaqayn la isbaayacaya wixii lagu heshiiyay lagu kala iibsanayay nidi bay'ul musawama la yiraahdo kaas baa ka mudan bay'al amaana oo waxay taa ku cileeyeen ruuxan baayici markay muraabaxa noqoto isaga waxan uu sheegayo ee uu leeyahay qiimihiisii weeye lagu aaminaya waxa dhici kartana hadii aanu qiimi kaliya aanu ka dhaqaaqayn waxaan kolkol buu daadu dabad kaba keenay cashuur baa jirto kharaj kale lagu soo qaaday baa jirto kharaj kala jira
waxyaalaha masruufaadkii dee waxaan kuba baxay ama silcadan helitaankeedii lagu bixiyey haddii uu kuba daro waxaa dhici karta waxyaala inay dhaafdhaafaan oo halkaa takhmiin uu soo galay leeyihiinoo ay ku adkaato inuu umuuraha masruufaadka dabdiyo markaa taa waana iltizaam bay jirtay dee inuu wixii sheego run ka sheego intii waxan uu ku joogay uu run kaba sheego marka iltizaamka caynkaasa ee ku sugan muraabaxo musaawamo kuma sugnaa isaguba waxa la arkaa ninkan tijaaradii waa ka dhaqaaqay jaanibkan taajirkii waayo wixii uu soo siistuu eegaya kharajkii buu kuba darayaa ribxigiisii buu saarayaa nooc yaan laba sheeginba isaguba habkan uu ka dhaqaaqay oo waa wax camalkeena oo dhan kuba jira wixii la soo siistay kharajkii hadhow inta uu maalintii saaray inuu 20% buu saaray 10% waa wax meeshii jira ee waan lagu tacaamulahaynun marka wuxuu leeyahay musaawamadan kol hadaan iltizaamka baayici laaziminayo inuu wixii sheega ayuu ka maray taas bay markaas ay uga baroontahay oo waa bayaanka iyo caday badan u baahanaya halkan waxyaala dhaafi karaan ayay leeyihiin waa khilaaf al-awla ama tanba kaba mudan bal taasi waxa weeye inay ahkaamteedii ma guda galayna suuradeedii uma kaba hadlaynaa waa muraabaxadii kutubteena inoogu sugnayd ee fuqahadii qudama ama al-fuqaha al-qudama ay kaba hadleen ay waliba ahkaam kala duwan iyo ahkaamteeda ay dabdiyeen wixii marka la doonayay in masaarif lagu beeriyo maxaa gelaya maxaan gelahayn oo kale haday cadaato been in la sheegay maxaa xukunku taas noqonaya waa ahkaam kala duwan oo ay leedahay oo de kutubta inoogu sugan bal taas been laakiin xukunkeedii guud waa kaas ama بيع المرابحة للآمر بالشراء كلي ومقع دنبه ومر دنبه يمي عبارات كلا دواننا ويليين وبيع المرابحة للآمر بالشراء ويلاها بعض يقول علماء قاركود أي يقول يلاها ولا تاسابك ورون بيع المرابحة للواعد بالشراء كواكيكو بالقاضية تاساكنا المرابحة المصرفية المرابحة المركبة وأسامي أدوى أما متعددة وحكرية له والمركة بيع المرابحة دان إغنو مرابحة دا هوري وحويا نواتان كبسو هذا له فاللبا طريقة يدو صورت آنان آدوسي قدق لهين دي صورت أقو بدن صورة أقو بدن سوق آدان أيوه لبا طريقة أي بل مثلا كبا إيمان كرتا مكوتي مادة بدوا مرابحة عادية متى فقهاء أي كبا هذين المرابحة البسيطة نبركود أي كبا عبران ومعنوها محي بأنكي استقود مصرف كي بابا وحية إذا عيدي كذل بين بوا وحو قعمي سكوتشري أما وحو هاي بابا ترى أما قوادي أما وحكا لها بالنقطة تيبو مرابحة كبا إيبيي طالب هورا أو إن كذل بي أما عميل كبدل بي ما وجرته تاسوا النوع والأركا أوقات قاركيد إلا بفوليو لكن إياga markay noqoto bunuugta taasi naadir bay tahay oo waxa iyadu naadir kaba dhigaya kulay sucuubada ay leedahay daraadeed xagga marka la eego inuu wixiiba kaba socon waayo haday keenaan nooy noqdaan dawrkii taajiriga dhamaa ay iyagu tawaliyaan oo kaba socon waayo makhadirtaas oo lacagta halka ay ka gashaa meesha way taalaa waxa dhici karta iyadna qudradooda taqsiini inay bakhaaro iyo meelo makhazin ay yeeshaan taas waxyaalahan ay dhigaan jaanibka iyagu ma ihtimaamaan oo jaanibkaasna waaba jira arin kalena way jirtaayo waxyaalaha la keenayo ee suuqi wuxuu u baahan yahay diraayo iyo garasho bal suuqi khibro loo yeesho maxaa soconaya muxuu yahay waxa la arkaa khibradaasna iyagu inaanay lahaynba bal jawaanibtaas ba naadir ay taasi u tahay hadii waqtiyada qaarkood halaba fuliyo waa naadir أما طريقة اللبات وتن المرابحة للآمر بالشراء من مقعية ذاله بركودنا المرابحة للواعد بالشراء إذا هانو كل صورتي إذا هذا متكسو قرطة باللفظ من سامي حمود ليلاه أو كتاب لتدوير الأعمال المصرفية وأردني كل أيا عبارة أهرية أما استعمال كان وحلا أركاب نكتو إسلام كوي كبير هرية نشاده إستغى waqtiyada hore suuradan kumay dhaqbayna mudaaraba iyo waxyaalo saas oo barkood kuwii u horeeyayba malaa khasaaro badan iyo waxyaalo ay uga yimaadeen bay ahayd ninkan kitaabkiisana waa risaalo doctora oo Masar kaba qaatay kallay waqtigii la niqaashay risaaladna 76kii ayay ahayd isaga cibaaradan walow de cibaarada kallay malaa Shaafiiciya wax ku sugnaayo meel uu soo qaatay in cibaarada horta isaga u horeeyay magac ahaan xagga marka la eego
xaqiiqa ahaan waa sheegi doonaa inaanay wax xadiisa aanay ahaynbe horena ay uba jirtay bal isaga kaas baa ninkaasa uga horeeyey kitaabkiisna waa kitaab mawduuco de waxa imaka faafay ee meel kastaba kaba dhacay xataa bunugtii gaalada ahaydba ay naafido islaamiya fureen waxyaalaha ku shaqeeyaan bal tasmiyadan iyo shaqada caynkana waqtiyadaasay bilaabantay waxa kaba mid ah bal maalan inuu ruuxii shakhsigii iyo bankigii ama kii camiilka iyo bankigii ay dee heshiis meesha uu dhex maro wacd inuu bankigu silco ama bidaaco soo iibiyo marka aan gacantiisa kuba sugnayn ballanqaadna uu jiro kan camiilkii inuu isaga kaba iibsanayo sicir markaa nisbadiisa ama ziyaadada kuba suganna lagu salaynayo sicirkii shiraa oo halkaa ay kaba ratimayso haddaan si kale uba dhigno ruux raaqiba ama daaliba imanaya oo bankigiibuu uba imanaya marka wuxuu doonayaa bidaaco mucayana oo labada way dhici kartaa inuu yidhaha gaadhi caynkaas ama aqal caynkaas u tilmaamay oo la iibinayo bankigu dee uu kaba dalbayo inuu iibsado isagana kaba iibiyo waa bidaaco mucayana ama se mid la sifeeyo dee sifaadkii iyo tilmaantii wixii uu doonayuu sheegaya taasu kaba dalbaya isagoo meeshii uu jiro dee ribxi ay iyagu isku waafaqayaan oo ka siyaadsanuun raasmaalkii masrifka marka uu soo iibsado dabadeed inta badanna ama dee qaalibanna bankigu tii naqdi buu kuba soo iibsanaya isagiina wuxuu kaga iibinayaa amaah buu kagaba iibinaya waxaa dhacaysana ama dhacda inuu ruuxii camiilkaa waraaq uu saxeexo intaan ballanqaadka horeba meeshii ama tacahud masrifkan uu la gelayo oo ama labadooduba ay islaaziminayaan waxaan ay ku heshiiyeen oo bankiguna inuu waxaa soo iibsado isagana kaba iibiyo isaguna dee tacahudka islaaziminaya ama laazimka kuba ah ee isaguna inuu wixii kaba iibsanayo awqaadda qaarkeed waxa dhacda oo dee khaasatan marka wala jaanibka kale inuu isagu kol bankiga hadduu doono khiyaar buu leeyahay waqtigu iska deen karaa ama ma soo iibin karaa laakiin hadday dhacdo fuliyo bankigu tacahud isagii ku qasbaya ama laazim kagaba dhigaya inuu wixii kaba iibsado waa intaan ahdigii iyo wacdigii ama waa wacdiga hore ee laba gaadhin taas oo kale bal taasi inay dhacdo umuurahaasi way dhacaan ama waa suwarta way iska jiraan bunugtan islaamiga barhkood ee dowladaha qaarkood oo tacahudka caynkaasi aanu inna laazim ahayn ee ruuxu labada dhinacba ay khiyaar uba leeyihiin bal taasi waa marka suurada markaan sheegno muraabaxadan waxay tii hore kaga duwan tahay oo kale laba marxalo ayay kaba koobmaysaa marxalada hore waa marxalatul wacd waatan is-afgaradkaas iyo ballanqaadka kolkolna ay kaba saxaxayaan dee tacahudka mulzimka ah oo ah dee dalabkan uu dalbay xaaladiisa ay diraaseeyeen bal markay xaaladiisii diraaseeyeen iyagina muwaafaqa ay laba yimaadeen oo weli wax la soo iibsaday oo la iibinaya may gaadhin waa marxalada wacdigo dhici karta kolkol damaanaadkii iyo waxyaalo qaarkood ay ugaba baahnaayeen inay marxaladaa raaciyaan marxalada labaadna waa marxaladan dee beecee intuu bankigu wixii soo iibsado bal uu isagii kaba iibinayo markaan leenahay soo iibsado isagii kaba iibinayo oo uu dowrkii markaas ruux waxiisanaya uu yeesho kana dowrkii waa ruux xiibinayo waa dee suuradeeda fiican hadday arrintu noqoto un wax xagga in lagu wareejiyo ruuxan camiilkii hawl kastaba isagu qabta bal dee baab kalaabay geli waanan arki doonaaye bal taas bay tahayba haddaba mucaamaladan suuradeedu ay tahay in ma aha mucaamalo imaka un la bilaabay waqtiga aan sheegayo un la bilaabay ee waxa cusub waa magaceeda ama xaqiiqatu mucaamala kutub al-fiqh al-islami kulli suurooyinka madhaba kala duwan ba wax way kaga sugan yihiin bal markan eegno in imam Shaafi'i rahimahullahu ta'ala kitabkiisa waa baabkana kulay de qaybihiisa dambe baab bay'il urud taas marka waxaan urud ay iibitaankeedii taas baabkaas baa hadalku ku soo arooray halku tawriyadii musharakada kaga hadlaya hadalku kuma wasugnaa ayaa waxa hadalkiisii kaba mid ah waxaan eegaynaa ma horta imaka walaw farqiya ay u dhaxayaan farqiyada sheegi doono tasmiyadii way cusub tahay laakiin xaqiiqada muaamalada fuqahadii horeba way arkeen way garteen oo waa wax laba midlan soo maray Shaafici baa wuxuu yiraahdaa wayda ara rajula sil'ata faqala ishtarha in haday dhacdo inuu nin alaab tuso alaab uu tusaya oo ku yiraahday iibso adamaha iibi maaha
laga yaabaa imaka waxa ii soo iibiyo iyo bankiina inuu ka cabiro waan u soo iibinayo waxyaalahaas si wakiilun ay u yihiin ama isagii oo lacag kaba bixinayaan suurada ay soo rogto ee uu ku yiraahdo waxa iibso anuguna hadaad soo iibsato macaash baan ku saaraya oo urbihuka fiha kada marka ninkii ma'muurka ahaa weeye ee marka hore amaltan lagu yiri wixii soo iibsado wuxuu ka cabiray Shaafici ibaaradiisa fashira oo jaayis horta iibsiga ninkan ma'muurka ah weeye uu soo iibsaday waa shay jaayisa والذي قال أربحك فيها بالخيار لكن كان كو يري waxa hadaad iibsato aniguna waan ka iibsano macaash baan ku saaraya khiyaar buu leeyahay maaha waa qasbay maaha waxa uu ku ilzaamsay maaha khiyaar buu leeyahay in shaa hadatha fiha bay'an wa in shaa tarakahu hadii uu doono markaas siibuu fulin oo beec buu markaa la iman wixiina uu saaray sina ku kala iibsadaan haduu doonana uu ka tagi hadalkii Shaafici baa socdaa wuxuu yiraahdaa وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له taasi waxay ahayd shay uu tilmaamay haduu ku yiraahdo mataac iisoo iiba ama alaab iyo bidaaco wixiina uu sifadeedii siiyo tilmaanteedii waana urbihuka fihi fa kullu hada sawaab hadii wixii intu tilmaanteedii siiyo kiina uu ku dhaqaaqo saa ku soo iibiyo tan inta horun bay laba mid tahayba oo wuxuu leeyahay beeca horena waa banaan yahay laakiin labadooduba waa kan wixii soo iibsaday iyo kan marka hore ku dhaliya arinku mid kastaaba waxay iyagu ku sugayeen khiyaar bay leeyihiin marka haduu yiraahdo waliba wuxuu yiraahdo hadalkii Shaafici baa socday وسواء في هذا ما وصفت كان قال ابتعه واشتريه منك بنقد أو دين haduu yiraahdo in waxa soo iibso aniguna waxaan kaaga iibsanayaa naqad ama sadeyn baan kaaga iibsanaysaa muraabaxada nimaka tahayna iyadna beeca hore waa banaaye laakiin wuxuu ku soo celceliyay beec khiyaar bay labadooduba leeyihiin marka beeca labaad khiyaar bay leeyihiin oo hadii ay cusboonaysiyaan beec dambana arinku waa banaan yahay hadii ay bal mesela taas laakiin wuxuu yiraahdaa haday ku mucaamaloodaan oo wax ku kala iibsadaan على أن ألزم أنفسهما إني عهدي هوري نفتودي أي لازميين وتصبح عن كوابح كرين أي كوابدقان فهو مفسوخ من قبل الشيئين بيع عين كاسي ومثل فسخيه معنى بيع أنصحيه معها لما الرمود بوشاقي أحدهما أنهما تبايعا قبل أن يملكه البايع midii waxay mucaamaladani ay dhex martayba isagoo baa'ici hore wali wixii soo milkiin oo kala day islaazimiyeen waxa ilzaamka keenay muwaacadadii wuxuu ka dhigan yahay ama la mid yahay beeci oo kale iyadoo beec dhacay walina ruuxi wixii ma soo milkiin waxaanu lahayn buu iibinaya taasi waa mid arinta labaadna waa mukhadaro أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيها كذا معناه هو أن عبد الله وحريه هذا دوحة كسو يبسطه أنا قلنا وشرط وحن تاسم مركا معاشان كوسينيا بل الصورة هذا منه مخاطرة ما تعليق بابو كبار دقي وحويا وحيالها كين يبيع هذا إلزاميشي ترى أكتيسا أما إمام شافعي الساستين عن أكتيسا بيعوا مفسوق يعني تاسوا هذا الإمام شافعي ابن القيم بكتاب كيسنا علم الموقعين أما يعلم الموقعين كل يوا قيبها قدام بيا كتاب ما قيبها قدام بيا فتوى معها ومركا الحيل إيوده مركا ورا ودريا فوقيا رديا هذا مركا دبون بوتريا مخارج بدن يحيل بدن بقولنا ودافيه ومثال كبقوليو كوباد ويا تاسا كفض يده رقم ليسعريو مثال كبقوليو كوباد مركو حيرشة أما مخارج شرعية كبهد ليم أيا وحيرها هدين إلهه ننكله اشتري هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا وأنا أربحك أظن إن كلان بل وحنا لنا واحد الصورة نوي شرتي بالله لكن وحيالات شريدة يبقى اعتبارنا يعني دارتن ودار أما سلعة هي بالكسو يبسو أنا قلنا معاش من كابسين يا أنت سامكو صار يا أكويراه مركز سامحولي فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها أو كبغضاك نكا لا أمري أيام محو كم عبصدي هدو وحي سو يبسدو نكو إنو كغبحو أو هدو كيبسوايو وحينا يسايا قريي مركا تاو كعبصدو أو مركا أيو سورتقري ويدو إنو وحي اسكبعريو أيام محولا فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار 3 أيام أو أكثر
xilada ama makhrajku wuxuu noqonayaa inuu markaa wixii soo iibsanayay ninkii kula heshiiyay uu ka iibsanayay saddex shay inuu wixii khiyaar leeyahay khiyaaru shardina waa shay xagga shariicadeena kuma sugan oo waa wax daliilkeeni uu jiro ama in ka badan waa sayda aymada qaarkood ay qabaan shaafiiciyada yani qabin ba saddex wax ka badan been markaas wuxuu leeyahay thumma yaqul lil amir markay taasi dhacdo ku oranaya ki isaga amray buu ku oranaya qad ishtaraytu bima dhakarta warniyo wixii aad sheegtay waan ku soo iibsaday marka hadduu markaa ka qaato waa si la doonayay haddii kale oo ninkii kaga baxo inay muddadii buu ku jiraaye uu iska celinaya khiyaarkii buu ku celinaya waa makhraj noqonaya marka muwaacadadan imaka muraabaxada ba inuu ninkani kaba baxo laga baqanayo waxa weeyaan aan arintuna ay tay inaan ka dhigno wax khiyaar wax ilzaama aynaan kaba dhigin makhraj oo khiyaaru shardi oo kale arin buu raaciyaayo wuxuu yidhaa haddii uu bal maalan weliba ka baqdo kii kalena ma khiyaar uu lama yimaado labada khiyaar ha kala yareeyo hadalkaa naftiisa uu yidhi waxa ugu horreeyey محمد بن الحسن الشيباني وصاحب المبسوط أيها صون نقرية كتابة قيبه الصدمة سقنا كتاب كيسا مطبوع مخارج الحيل أيكم بس كل هذا الكوبعنا وحلنا بل أي مدى سوى سورة إلهين حتى مالكية هو سورة يركين لكن يجو وحي قدرا مركز سورة تاي وحا إيبسو waxaasna ku soo iibso anna waan markaa ribxi baan ku saaraya biyuucud ajaal ay dhahaan ama ciinada qaybaheeda kaba dhigaano hadii lacagtii laga heshiiyo ama lacagtii laba sheego iyagu beeca banaanayn bay kaba dhigaan waxaan banaanayn bay iyaga agtooda ay tahay waana sheegaan oo aymadoodii horeba laakiin biyuucul ciina ama biyuucul ajaal bay taageeriyaan bal markaa waxaan leeyahay suuradan imika ay noo taalo in waxa weeyaan waa suuro hore oo laba garanayo culimadii hore ay arkeen laakiin culimada hore oo dhan marka la eego sixada suuradan iyo in habka wax lagu kala iibsado shardigoodu wuxuu ahaa adam ilzaam al-amir bi wa'di ki amirka ama dalibka ahaa inaan wacdigiisii lagu qasbinoon la ilzaamin khiyaar bay u yeeleen xagga marka la eego ama inuu doorasho leeyahay in beecisa kuma fuliyo iyo wixii ay ku ballameen ama uu iska badaayo taasoo kale waa marka arrinkaasi dhacayaana oo marka kii ma'muurkaasi silcadii uu hantiyo ee isagii u bandhigo bal taas bay iyaga arrintoodu ahayd bal waxaan leeyahay haddaba tasmiyadan lagu magacaabayo المرابحة للآمر بالشراء أما للواعد بالشراء أما المرابحة المركبة أيوم عصب صورة حقيقة ديدو ولو أي مدى هوردي كونا أي قيد مخرجهان أي وصولكتين حيلة أهامبا كونا شافعي وكلي وليبو صورة آدو سي بسنيي أي مدى هوروا وحي أركان إن أي مدى مالكيدنا أكتود بيوع دعينا دي كدرنا أما بيوع الأجالو هذي مراوضة وانتم وحبا لقيهشين وحادات سويب ستاء نوان كايب سنهم العقل مقعابنا ذكراهم بيكواليغان لكن هذه لما مقعابنا انتا سالسيني انتا كويبسانا انتا سنكو بساري دونا يادا تاسوا بيوع دعينا دي قريانا ما أجالو أن أكتود كباب بنانين بالمركة تاسوا مد haddaba in waxa weeye labadii muraabaxaba suuradoodii waan soo aragnay maxaa u dhaxeeya muraabaxadii hore aymadu kaba hadleen kutubtii nooguba sugnayd iyo tan dambe muraabaxadan dambe ee imika lagu tacaamulaa way ka duwan tahay muraabaxadii hore umuuro kala duwan bay kaga duwan tahay ta koobaad السلعة في المرابحة العادية موجودة عند البائع قبل طلب المشتري الابتن أما بضاعة المرابحة لو كلا يبسانيا روحا بايعة ومركا وربا قعنتيسا كسي جري انتانو روحا مركا مشتري كبا ضلبين لكن مرابحة المصرفية waxay ruuxan baa'ica ama yaade wax weeyaan ama maamurkii gacantiisa soo galaysa dalab ka dabadi taas waa suuro ay ku kala duwan yihiin muraabaxada hore waxay ku guntameysay marxalad kaliya oo markaliya oo leeyahay waxa intaas iguba joogay intaasna waan ku darsaday ama faa'iidadayda ama ribxigayga intaas ki kalena uu kaba aqbalo taas bay ahayd oo marxalad kaliya laakiin tan dambe al-murabaha al-masrifiya ee marxalo laba marxalo jira mid waa taa muwaacadada bal tafaahum kan iyo ittifaaqan ama isballanqaad kan uu noqonayo iyo marxaladan dambe aqdigu dhacaya marka wixii oo ruuxani uu soo iibsado ama muasasada ay soo iibsato المرابحة العادية أرن صدحات وحدعي كريسي أما دي إسكابا بنايد إني حالا نقطه ولعقتا كندن بي إيبسانيا ومركابا بحيون وحبا الله يسكو يالا مؤجلنا وينقون إسادة كاشافعي وينوغبا سغنيد لكن المرابحة المصرفية تنمك أينو دي لغو تعامليا لعقتو
naqdiha kuma soo iibsato bankigii laakiin ruuxan doonaya waa shay muajala mar dambe uu bixinayo loo yaryaraynayo oo kolba in uu bixinayo bal taasna waa farqi kale in mesela arrin kale oo bal afraad calaaqadu markay noqoto almuraabaxa alcaadiya laba darafun bay ahayd waa baayic iyo mushtariga keliya labadan ayuunbaabay kaba dhexaysa calaaqadu laakiin muraabaxada maanta joogta saddex dhinac baa meeshii calaaqadu ay dhex maraysaa midi waa labadan marka hore ninkan daalibka iyo muassasadii markaas ama bankigii iyo ruuxan dee laga soo iibinayo alaabtii oo kan kaloo isaguna daraf noqonayo saddex darfood baa meeshii soo gelaya baa'ica koobaad iyo baa'ica labaad oo dee muassasadii noqonaya iyo mushtariga oo taas bay noqonaysaa calaaqadii taas bay tahay in arrin kale oo bal mesela furuuqda uba dhaxaysa وجود المشتري هو الطريق إلى الامتلاك في المرابحة المصرفية إلا هذا الروح دونية وكائب سنية وطريقة إيا وصيلة دبا روحا إيبينيا أما مؤسسة أما بنكي ووحن وكملكيه هذا كان طالب كيترين عميل ترين وحن أمري أو دونية وحن أصلاحان مبا إيبسدين أما تاكله وحو إيبسد الله أركبري هربا وإيبسدي أيو طريقا كبا إيبين كرا مثلا تاس معاين marka la eego bal iyadana muraabaxada masrifiyada masrifku silcadi ama bankigu waa soo iibsanaya wuxuu soo iibsanaya markaaba inuu iibiyo inay u sii taalo u sii joogto oo muddo haysto uma soo iibsanayo markuu soo iibsaday inuu iibiyo ayuu iibsanayaa oo ka iibiyo kii camilka ahaa ee ku ballan qaaday inuu kaba iibsanayo ama almuraabaxa alfiqhiyya ama muraabaxa albasiida ama caadiya marka doonaba aan kuba idlaaqnay waxa dhacaysay baayicu inuu silcadan milkiyo oo uu haysto aad ku intifaacdi laakiin ay u muuqato marka dambe inuu san kuba iibiyo oo waxa dhici karta muddo dheer baagtiisa inay kuba sugnaato bal waa waxyaalaha uba dhaxeeyaan haddaba furuuqda badan ee ay leedahay in marka muraabaxadu ama labada muraabaxa u dhaxeeya kol haday jirto waxa boon maaha wax meesha leegna maaha in ahkaamtii almuraabaxa alfiqhiyya inta la soo qaado iyadii la siiyo in laba yidhaaho culimadu way isku waafaqeen almuraabaxa alfiqhiyya tanna waa la isku waafaqsan yahay suurooyinkeedii ay lahayd jaa'iz bay ahaayeen si kastoo loo fuliyo tanna si kastoo loo fuliyo in la yidhaaho waa wada sax taasi wax meesha imanaysa maaha waxaanay noqonaysaa dee kolley khada bay noqonaysaa in axkaamtii ay lahayd taasi oo dhan bal maalan aan suuradan khaasatan jawaaskii iyo sixadii iyo waxyaalaha caynkaasa inagoo eegayna un magacani inuu kaba dhaxeeyo inagoo eegayna ismi ahaan in iyagoo iskaba shabahay inagoo eegayna suuradii hore inay asal u too laga dhaqaaqay oo halkaa lagaba dhaqaaqay bal taa eegayna in iyada axkaamtii untaa la siiyaa kolley waxay noqonaysaa nooc khada tan dambe waxay noqonaysaa in la eego kolley suuro kastoo la furiyey gaar ahaanteeda loo eego la eego maxaa shuruudeedii iyo dawaabideedii madhantay mise maaha taas baa xukunkeedii yeelane xukun mutlaqoo jaahisa oynu nidhaahno un waa dee imaka muasasadaasi muraabaxa la furiyo muraabaxadaasi in dadkii la yidhaha waa wada jaa-isun iyadoo la eegin seebay tahay iyo siday ku fushayo shuruuddeedu maxay tahay iyo dawaabideedu maxay tahay taas ma hadal kama dhigna waa xaaraam kama dhigna oo imaka guud ahaan inaan lahno taas waxaan leenahay fulinteedan la fulinayo si keliya looma wada fuliyo siyaalo badan baa loo fuliyaa siyaalo loo fuliyaa jahli ku dheehan yahay baa loo fuliyaa ama tasaahul uu kuba dheehan yahay kolkol shuruud iyo dawaabid ay lahayd baa lagaba boodaa marka waxay noqonaysaa suuro kasta oo la eegayo ruuxii eegaya in la hubsado maxaa dawaabideedii ma dhan tahay mise maba dhammaa taasba bal marka waxaana jirta muraabaxadan marka la eego almasrifiya xagga dowrka ay ku leedahay bunugtii islaamiga ahayd horta markii u horeysay nashadoodii say ku bilaabeen ma aha tii hore oo makhadirteedu badan tahay mudaaraba iyo mushaaraka iyo waxyaalahaas kuwii ugu horreeyay malaa lixdanadii midharkii bilaabmay ay kuba bilaabmeen oo haddana ay dib la kacakufay oo ay meeshii kaba baxeen ayaa markii dambe tan makhadirteedoo yar iyadoo rabxigeedii dhow yahay iyadoo bal maalan taas aabaa xaggan loo jeestay oo bal markaa waxay noqotay almuraabaxa من أهم أساليب توظيف الأموال في المصارف الإسلامية marka la eego amwaasha standee lagu maalgeliyo ama taasoo kaliya tawdiifkeeda waa ta ugu ahamsan bal waxay gaadhay nisbadeedu in badan oo masaarifta islaamiga kaba mida wax 80% ka badan dalalka qaar kood baa la sheegay 90 inay kaba badan tahay macnaa waxa ay furiyaanba inay taa noqotay bal marka arrin kalena way soo korodhayo
iyadoo muraabaxadani ay hirgashay aadna bunugtii islaamiga ahayd dee markay uga badsadeen iyaga qabuul badan oo ladal caama meeshii ay timi ay keentayna xataa ribxi badan iyo waxyaalo ay keentay taas baa waxaa dhacday masaariftii marka horeba rabowiga ahayd ee taqliidiga ahayd ee bilaadda islaamka kuma sugnayd bal masaarif iyaduna caalami oo gaalaba ay lahayd oo wadankii gaalada kuma sugani inay markay arkeen arrintan qabuulkan iyo ribxigan iyo inay ay noqdeen almasaarif alislaamiya fi lasri inay kulaba tartamaan oo ama bunuka rabowi oo badani ay qayb furtay dee ay yidhaahiin markaa islaamiya bal bunug badan oo caalami oo gaalaba ay lahayd iyaguna naafida waxay ku magacaabeen naafida islaamiya ay fureen oo umuurahan laguma fuliyo waa qabuulkii meesha yimi haddaba in badnida ay badnaatay iyo umuurahaas dhacay iyo tadbiiqeedii ayaa waxaa markaa ka dhashay markii dee in aad loo badsaday 80% 90% gaadhay mukhaalafaad sharci meeshii inay yimaadaan waxa dhacday silacda iyo bidaacada awqaadda qaarkeed inay noqoto لبعض المصارف موجودة على الورق فقط سلعة إنا نجرين بضاعة إنا نجرين هل كي جرتها إنا يتهي ورق للقور يوم واحد عضي إن وظيفة بنك قوام مالها قاركود هي بلاد قاركود هي بنوك قاركود أي كوكوبانتي على الأعمال الورقية وحاقوا قرقور يؤون وحي سيقاري يا بقى نجرين دور وجتو كل يبقى أنا جرين ونقضينا مركز روحي عملك هي وحدوني إلا وكاشة إنه وحي سوء يبسده إنه يسوي وحي قبضاده إنه يسكئب وحي الله وكاشة والأمور هاسه مخالفات كعين كاسنا وحي كانين بل مثلا ده مجمع الفقه الإسلامي كل لما مجمع وين ما ترى ده مجامع كلنا ويشرتها محلية وكلا دوانه حتى هربية أمريكا مجمع وين بيلاقينه هندي دوالة ده بل لما مجمع من الرابطة ومركز وياهي من وحي كان الدولة المؤتمر الإسلامي أما تعاون الإسلامي منظمة مركز عند بلو بحية ورأسية هاي أي يبغى كل habeenka dambe ayaan soo qaadi doonaa qaraarkoodii muraabaxa ku tacalluqsanaan hordhac uga dhigi doonaa insha Allah ta'ala shuruuda muraabaxada iyo dawaabideeda hordhac uga dhigi doonaa laakiin qaraarka wax ka mid ah markuu taa eegayay ayaa taasi waxay kuba keentay inuu isagu soo saaro dardaaran ama farid uu farayo bunugtii islaamiga ahayd inay yareeyaan inta suurtagal ah usluubka muraabaxada usluubyadii kale uga jeestaan haddaan bal maalan hadaladoodii soo qaado ama laba arrimood oo taa kuba tacalluqsan waxa tawsiyadiisa bankiga ahaa ama majmac fiqhi horta waxa kan leeyahay haddaan nubdo kaba bixiyo majmacan alfiqh alislaami imakana aldawli laba yidhaaho ee munadamada maqarkiisu magaaladan jidda ama judda weeye in kolley ka kalena maqarkiisu waa maka waa ka raabidada raacsan culimo badan oo dalalka oo dhan kaba socoto matashaaway kuba jiraan على الأقل وادعي كرتدين إن دولة الديراتون مستواها لهينه لكن إن بدنا أقوانتها سر اللي ويشران مركب مسايش عين كان لبحثي أنا ما وح أنت جلسة اللي يسوي مالين يلا بالله فريسة وحلا صاروا عد بالله دير بحوث صاد يارسة وحوال لقى سوقرا الأركان سند إلا سووا بل هذا موضوع أما اقتصاد كتعلق سنة مع فواد أما وحكى لو كبحثن فقهاء وحي مركا لأجا اختصاص كودي وحلو يردادات كي أقونتها ولا سي الصورة دي وعدية أن يصي وبدعي سي دبديت بالليسوي ما دايو بحوثي باللغة الدودة للنقاشة مركا ساد دبديتنا قرار رسول صارا كل واحد عدا إلا ديب ديغو مركا مسايش يدو للدودة سندنا للصوب بحثي هذا لا يرى ولي ما عدو la ta'jiiriyo la yiraahdo mar dambe iyo dawlad dambe marka waxyaalaha iyaga ay soo saarayaan kulli waa ka mudan yahay maaha ijmaac marihin oo ijmaac ma hada culimada islaamku meesha kuma dhamo oo ijmaac ma aha ijmaac culimada ay kutubta usulka kaga hadleen ma aha laakiin waa ijtihaad jamaaciya oo shakhsiya laba iyo saddex ama dhowr dhici karta aan waxyaalaha duruuftaas iyagu ay heleen aan helin masaladii dhici karta iyadoona u cadaan bal mesela xukum soo jeediyo fatwooday arintoodu way ka roontahay waa wax la qadariyo marka la eego waxyaalaha qaraaraadkoodaas waayo maraaxishaas soo maraya taasba weey marka waxay ahayd iyadoo aan kulli qaraarka naftiisa iyo waxa banay ay marka shuruuda ay leedahay banaanida muraabaxadu marka dambe insha Allah ama habeenka dambe aan raacin doono bal bilowga uga dhigi doono tamiidaan shuruuda iyo dawaabida ayaa waxay ahayd farabadnida la badsaday aad loogu jeestay
muraabaxo oo in badan oo kaba midi wax la soo dhowrsanaya ay noqonayso oo halkii markii hore hadafkii ay kuma dhismeen bunuugta islaamka inay mashaariic weyn oo istismaariya oo dadka wuxuu tira ay fuliyaan markii dambe ay tani yaraysay oo umuuro kamaaliyaada iyo ay wixii isagaba bateen wax la soo dhowrsanayo la arko inaanu dhaqaalihii wuxuu soo kordhinahayn bal maalan dee afraadan kama faa'iidaysa un mooye ayaa maxay yidhaaheen ay kulaba taliyeen أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد وإني وبل مثلا واسع نقضه وبلاده أو عندنا عن لو كوبنانه اقتصاد كواحد كبعين هي قيبه دي أساليبتي وحيالها سيكون إيمانيا بل أي بطصدان خاصة مشاريع أما صناعية أما تجارية ولا لا يماده أما جهود وخاصة بنكي هلا قلبا يماده أما عدكله هلا قلبا شراكوبه بل تاسوامد أردت مرابحة خصوصا سنة واحدة أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة حالات كان عملية جددوا مدوا حكم جودو وحن لنا هذه الشروط على له ويبنانتي مرابحة الأمر بالشراء هذه الشروط على له لكن نبت واحد كتاجنت مركل الفلين أيوه إلا تطبيقين أيوه أدعي كرت الروح عن مستواها يا قمتها فهم سنين بقى وتطبيقين أيوه بل إن بدنا ضد كان لا تعامل يهدد حرام يا حلال كالسوعي أنا هينا هذا دور خيامة السوم ليجن أي لما إيمانيان أو وحو يا شيء أو لا يكل يبسدان ولا إيمان ولا يوا وحو يا شيء ما إن وحى إن مثل السوء يبسدان أنه عندك يبسوا وحو يا شو عربوك بس بحي سوء الشيء ما لقن قال أنا ما بشر تصورة لا ساكلة وحيالها الساعة يا إسكاب بدنا وحلنا وحق التطبيق فلمت أي قلادنا كما إيمان يا النظام كجود معها هذا ما حيله المركز حالات كعملية لجو فلينيو مرابحة هل دراسيو أو بمثل لو دشيا ضوابط كإيرانية إن خلال دعوه حق مقلب دعوه حق تطبيقي ضوابطها لو دشيا أحكام الشريعة إيرانية تدي بالمثل كلمة كبر جيسان سامتي عام كذا نقطة متي خاص كهيد وخاص كهيد بيع عمبر المركب وحنا هاي أخذنا هي مخالفات كشرعية بتصشد كبيمي أسباب كلا دوّن ولا يوم هم كوجود بيان أمورها كبهدر دون هدي الله يراها إلهي نور بيرايه أيها وحكي توصية وحماشي ترى هذا بقلادة مع النظام كي وفرنتي وتطبيقي وواحد يكرتنا وقاد غير كده كم فلني يأكل كل ده هيركاس شو قبل إن أنا يهين أما أقول هان أما على كعبسي أكله كم دون يا إن بدنا كم الخيامة ويبقى تودي أبصير هذا واقع هل كم ما هي لكن هسه هل كان شو ما مشبوط أكله ده بس كم أنت وحياله كل خيامة ضد كم إيمان يوحد دون يأكله فالأمور هسه وحكينا يعني إن المرابحة دي حكم جود سين شروط دي الضوابط دي عاشقنا marka ay ogaadaan cidii fulinaysay ninkan wax doonaya waa ninka ugu aamsan inuu ogaado maxay goormay sax noqonaysaa si aad marka wixii uu doonayay loo maalgeliyo dariiqa u maro qaladadu maxay jiraan suu isaga ilaaliyo arintu ma waa leeysiin isagu kuma badbaadayo waxa weeyaan wixii hadii uu de wax qalad qaatay isagina qayb ka yeebal isaga qaladka in badan xaqiisa kaba imanaysaa bal waa umuuraha aan ka hadli doona insha Allah shuruud iyo dawaabida waana waxyaalaha ugu ahamsan ayna wada khuseynaya kulli kalaamkeygina caawa intaasan ku soo koobaya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam